Daawade haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato janaalka, subscribe saar sidoo kale riix gambaleelka si aad ula socoto macluumaadka aan soo gelino janaalka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan baxda ku xiran janaalka Ilayska Bulshada ku soo dhawaada qisadeenu maanta. Qisadeenu maanta waxay ku saabsan tahay dilaaga weyn ee lagu magacaabo Nico Allen Jenkins. Nico Allen Jenkins wuxuu ku dhashay dalka Mareykanka 1986. Nico Allen qoyskiisu waxay ahaayeen qoys wada dambiilayaal ah. Nico yaraantiisa waxa uu arki jiray dil, dhac iyo daroogo oo ay qoyskiisu caado u ahayd intaaba. Waana sababta Nico Allen uu noqday dilaa weyn oo dadka meel kasta ku dhibaateeyo kuna waxyeeleeyo. Nico waxa uu dhibaatada ka bilaabay iskuulkiisa maalin maalmaha ka mid ah markuu iskuulka dhexdiisa biskoolad soo qaatay oo isagu u arkayay wax iska caadi ahba. Nico Allen yaraantiisa waxa uu bilaabay inuu dadka dhaco, dadku dilo, sidoo kale dadku waxyeeleeyo. Markuu jiray da'da 15 sano waxa uu afduubay gaari ay dadkiisu saaran yihiin. Nico Allen waxa lagu xukumay inuu xidhnaado 21 sano maadaama isagu da'diisu ay yar tahay. balse ma ay noqon, waxa uu xirnaaday 10 sano oo keliya. Intii uu ku jiray xabsiga waxa uu sameeyay dhibaatooyin fara badan. Waxa uu qori jiray cadiga afka lagu cadeysto si uu ugu dhigto hub, balse ugu dambeyntii waa la soo fasaxay oo qoyskiisu ayaa la dhex keenay. Maalin maalmaha ka mid ah isaga iyo walaashii waxay ku tashteen inay soo dhacaan gaari. Way soo baxeen waxayna arkeen gaari ay saaran yihiin 2 nin, balse walaashii ayaa qorshe keentay inay shukaaminayso 2 nin oo ay gelinayso meel luuq ah si walaalkeeda uu kaga daba yimaado uguna takhaluso 2 nin. Ugu dambeyn qorshahoodii waa uu hirgelay, wayna ku guuleysteen. Waxayna ka soo tageen 2 nin oo meyd ah. Gaarigiina sidii ayay ku soo qaateen. Waxa uu ku xijiyay mid saaxiibkiis ah oo ay hal meel xabsiga kaga jireen. Mar kale waxa uu damcay inuu xado gaari ay saaran tahay haweeney u soo adeegaysay qoyskeeda. Gaarigii ayuu istaajiyay wuuna kala soo degay naagtii, isla meeshii ayuuna ku dilay. Booliska ayaa baaritaan badan ku sameeyay kadibna way soo ogaadeen Nico Allen dambiyadiisa. Nico ayaa booliska u sheegay sababta uu dadka u dilayo inay tahay in mas Egyptian ah uu u sheegay inuu dadka dilo una isaga wax dambi ah ku lahayn. Kadib booliska ayaa baaray maskaxdiisa bal inuu waalan yahay iyo in kale, laakiin maskaxdiisu wax dhib ah maysan qabin. Nico Allen maxkamadda ayaa la saaray waxaana caddaatay in walaashiis ay garab ku siin jirtay dilka, taasoo xabsi daa'in lagu xukumay. Sidoo kale maxkamaddu waxay baaritaan ku sameysay Nico hooyadiis oo ahayd midda u soo iibin jirtay hubka isaga dadka uu ku dilayo. Maxkamadda ayaa go'aan ku qaadatay in sidoo kale Nico hooyadiis ay xabsi dhigto. Nico Allen qoyskiisu badankoodu waxa ay ku jireen xabsiga. Nico Allen waxa uu isku dayay dhowr jeer inuu isku dhex dilo xabsiga. Wajigiisa wuxuu sidaas ku yeelay sakiin, isagoo xitaa isku dayay inuu xubintiisa taranka u ekeysiiyo sida maska oo kale. Nico Allen Jenkins hadda wuxuu ku jiraa xabsiga wuxuuna sugayaa dil toogasho oo ay ku xukuntay maxkamadda. Muuqaalkeena maanta wuxuu ka eegyahay intaas. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Fadlan haddii uu ku qanciyay muuqaalka like saar, sidoo kale fikradaada dhanka hoose ee commentiga noogu reeb.